السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الواحد كسر دواتان قيبت الصدحات برنامجدا aynu kaga hadlayno marinu helida ballaarinta cadaaladda Soomaaliland barnaamijyadan oo aynu hore uga soo hadalnay laba qaybood oo kala duwan ayaa qaybta saddexaad waxaynu kaga hadli doonaa ururada bixiya kaalmada sharci barnaamijkan uu fulinayso hay'adda maxalliga ee Aadam Academy isla markaasina ay ka taageerayaan hay'adda EAG iyo wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa toddobaadkan waxaan kaga hadli doonaa ururadaasi bixiya kaalmada sharci waxaana marti igu ah Yaasmin Cabdi Cabdilaahi oo kamid ah ururadaasi bixiya kaalmada sharci mas'uuliyiintooda Yaasmin kusoo dhawow bulsha TV su'aasheeda goor waxay noqonaysaa in ururadan la yiraahdo legal aid ama kaalmada sharci bixiya maxay qabtaan sidee dadka u taageeraan xagee ku yaalaan bal sharax nooga sharax faahfaahsan ururadaasi wallahi rool weyn bay ku leeyihiin aad muhiim ah qofku waxa marka uu la soo dacweeyo ama uu dacwoonayo wuxuu xaq u leeyahay inuu helo maxaa la yiraahdaa kaalmo sharci dawladda ay ku waajibinaya xeer baa jira hadda socda oo waajib kaga dhigay dawladdu inay u qabato qareen qofka u dooda dawladdu waxay ognahay dawladda Soomaaliland ma wada ka gareyn karto dadkii oo cid kasta loo ma qaban karto marka waxa ay dawladda ka caawinayaan in la gaaro cadaalad nidaamkii lagu gaari lahaa in qofkan helo cid loo yara oo sharciga ka caawiso oo hadduu khaldan yahay iyo haddii laga khaldan yahay labadaba saxda oo xaqiisa u raadisa marka door muhiim ay ka ciyaaraan mandatekooduna sidoo hore soo sharaxay waa in dadkaas siiyaan kaalmo sharci oo ah maxay hayday cidii loogu talagalay cid kasta ma siiyaan laakiin waa in cidii aan awoodi karin ay siiyaan kaalmada sharciga tusaalahaan anaga xafiiskayna umka aan ka socdo waxa la Somaliland Women Law Association Somaliland Law Association wuxuu leeyahay policy xeerar ku asaasan yahay waxa kamid ah xeerarkaas in qofku markuu ku yimaado maxkamadda waxaan ku leenahay xafiis sidoo kale waxa noo jooga fokorbantiyo maxay ahayd ADB-yada qaar inkastoo aan wada joogo way hay'ado badan goobaha barakacayaasha marka inkastoo aanan ku wada lahayn dhamaan barakacayaasha waayo hay'ado kala duwan baa jira oo nagala shaqeeya arrimahan laakiin waxay noo joogaan ayaxyada ayaxwana ayaxtu ayaxtiri sidoo kale waxay noo joogaan state house-ka marka dadkaasi waxa ay soo gudbiyaan qofka marka uu u baahdo kaalmo sharci ay arkaan inuu u baahan yahay xafiiska keenan xafiiska marka ay noo keenan waxa la eegaa qofkani ma yahay qofkii ku haboona qof kasta soo dalban kara kaalmo sharci qofkii ku haboona ma yahay kiiskani related ma leeyahay dadka kaalmo sharciga la siin lahaa dabeetana marka inta la eego waxa qofka loo diraa laba markhaati si loo sii cadeeyo inuu qofkani qofkii ugu haboona waxay ku wada oranayaan maxay ma awoodi karo way lorka waa qaali wada ogtahay marka labada markhaati oo qofka soogaalo ama markay cadeeyaan qofkani inuu yahay qof nugul oo aan awoodi karin inuu qabsado lawyer waxay xafiisku siiyaan qof u shaqeeya marka ugu horeysa waxa la siiyaa talin sharci oo kiiskiisa ku saabsan waxa loo furaa dacwadaha arjiga oo processka dacwadda dhan ba laga caawiyaa samanada sidii u qaadan lahaayeen haddii uu yahay qof xidhan waxa jira baaraliga saldhigyada nooga shaqeeya oo mara saldhigyada subaxii saldhigaas laga soo gudbiyo marka way kula kulmaan way la soo wareystaan xogti ka soo gudbiyaan lawyer ka loo gudbiyaa kaloo saas ugu dooda waxa ay habla caawiyayeen ama caawiyayaalaho ah lawyer qofkii caawinayay oo u soo mara goobaha saldhigyada iyo goobaha maxay hayday dadku ku xidhan yihiin iyo jeelasha ugu taga oo xogta ka soo qaada isku xidhan lawyer iyo qofka horta bulshada la hayb sooco waxay ka mid tahay dadka nugul ee aan hore u soo sharaxay ee ay waajib noqonayso in kaalmo sharci la siiyo isku xirka iyo sidii la isku xirayay si uga faa'iideystaan waa inta ogaalkooda tahay laakiin runtii inta ogaalkayga waa dadka aad iyo aadka u ah related ka wala ah waa dadka aan inta badan la celcelinin oo aan maxay hayday xataa aanay organization ku sii xidhin inay cadeymo badan bixiyaan waayo marka laga soo gudbiyo xaafadii guddi soo gudbiso isla markaana la soo xulo lama sii celceliyo waayo waa dadka iyaga gaar ah oo loogu talagalay oo shuruudo dadka lagu xulay iyaga lagu ma xiro aad bay maxay hayday u soo dhaweynayaan in ka faa'iideystaan intii ka faa'iideysatayna ay hore uga faa'iideysatay inta aan ogeynaan u sheegnay in ka faa'iideystaan runtii waana caawinaysa waanu caawinaa siyaabo kala duwan baan u caawinaa bishii boqolaalkii waxaa soo gala marka uu weeri 40 ama 50 kiis oo ah horta inay ama la talin sharci ku weydiiyaan in maxay hayday dacwad loo furo in maxay hayday dacwad loo maxay hayday loo galo oo lawyer loo noqdo kiis badan baan caawinaa siyaabahan dadka u caawinaa marka way kala duwan tahay waa sidaan ku sheegayo xataa haddii aanan anigu marka qofku u yimaado kufsiga oo kale markii naloo soo refer gareeyo marka ugu horeysa waxaan siinaa talo sharci isla markaana waxaan u refer gareynaa u gudbinaa
hay-adda kale ee maxay ahayd adeeg haysa tusaale caafimaad buu baahan yahay qofka kufsiga soo dhacay waxaan u gudbinaa baahi koob oo ah goobta kaliya kufsiga caafimaadka lagu baari karo CID baan u gudbinaa xeeraalinta baan kala shaqeynaa marka waan caawinaa waliba waxaan u asaasanahay dhammaan dhigteed way wax weyn caawiyo qablayeen ma lawyers ah iyo baaliga lisada loo joogo tababaran xafiisyo kala duwan baan ku leenahay Hargeysa Gabiley Burco Boorame maxay hayday waliba Hargeysa laba branch baan ku leenahay xafiis maxkamadda ku yaala iyo xafiiska heerka sare ka aad iyo aad baan u caawinaa wallahi kiisaska ugu badan aan caawino mar hadii la yiraahdo dad nugul ah inta ugu badan horta marka tacaddulo cod dumarka iyo caruurta uu ku dhaco tacaddigaas laba u kala baxaya haddii qofkaas uu kiis madaniya wato de lawyer buu baahanaya caawiya haddii uu kiiskiisu ciqaabiina waxaanu ka caawinaa in laamaha cadaaladda ee kale ee matalaya dowladda matalaysa waxaa joogta xeer laalintii ayagu mataa hor taargareena marka kiisaska ugu badan oo gacanta ku qabanaa kiisaska qoyska waayo dhibaatada ugu badan ee imka dalkeena dacwadaha ugu badan ee soo noqda waa dacwadaha qoyska caqabado badan baa ka taagan qoyska dumarku dhibaatooyin badan bay la kulmaan iyo caruurtu oo hooyo la furay hooyo biilkii maxay caruurtii laga ceshaday hooyo caruurtii laga qaatay kuwa ugu badan oo caawina waa kuwa laakiin dhammaan dacwadaha gabadha marka la kufsado ee loo xukumo xuquuqdeedii madani meher misl waxa dhaba loo xukumaa marka ninkii la kufsaday uu dhamaysto muddadii xariga waxa ay dib ugu soo dacwoodaan in xaqoodii helaan waxaanu siinaa lawyer u matala oo u doodo u raadiya xuquuqdooda markaas wallahi horta de Somaliland Law Association waa urur maxay ahaydee u taagan dadka inay caawiyaan inta ugu badan volunteer ku shaqeeya laakiin hay'ado badan baa jira ay wada shaqeyn aan leenahay oo ay ka mid tahay EHA oo ay ka mid tahay maxay UNDP oo muddo badan maxay ahaydee aan soo wada shaqeynaynay inkastoo iminkan aan hadda rabnay inaan wada bilowno UNODC waqti wada shaqeynay hay'ado badan baa jira wada shaqeynay laakiin inta ugu badan marka de waxaan wax ogtahay hay'adaha wuxuu waa project based projectgaasi marka uu go'o dadkayga waxaan ku caawinaa volunteer marka waxaan leenahay policy volunteer dadku inay ku shaqeeyaan dhigaya oo dadka aan ugu shaqeyn marka marraba ma istaago xafiiskayga marraba ma xidhmo haddii fan aan haysano taageeraan helo iyo haddaanan helinba aan shaqeyn xafiisyo kala duwan bay leeyihiin goobo kala duwan ka hawlgalaan bay leeyihiin de marka Somaliland Law Association laga soo maxay ka hadlayo de head office bay leeyihiin sidoo kale waxaanu sameynaynaa inka call center wax la yiraahdo oo dadka ay ka soo wici karaan qofka oo marka aanu aragnay yaani bulshadu baahida u qabto inay hesho goob cadaaladeed iyo cid caawisa legal aid ka caawisa iyo inay tala sharci helaan waxa aanu establish gareynay oo aanu rabnay inaan imika sameyno oo lagu jira hawshiisii call center kaasoo maxay si bilaa lacag qof ku soo qaraacayo xogna ku helayo isagoo gurigiisii joogana la tala sharci ku helayo isla markaana kiiskiisa processkiisa loogu dhameeyo soo gurigiisa jooga marka urur kale oo kala duwan oo ka shaqeeya way jiraan jaamacadii Hargeysa jirta oo jaamacadii leh xafiis kule maxkamadii urur badan baa jira oo ka shaqeeya horta wuxuu noo heli karaa waa koow waxaan ku leenahay bulshada dhexdeeda dad gudiyada la shaqeynaa xaafada gudi kasta oo wada shaqeynaa gudiyada xaafadaha mar labaadka wuxuu noo heli karaa xafiiskayga wuxuu ku yaala maxkamadda horteeda waa center xafiiska hablaha qareenada de hadda intarkana wuxuu caawin doonaa qofka aan intaas midna awoodin inuu la kulmo telefoonkaas ku soo hadli doonaa maxay waana xogtiisa oo dhammaystiran buu ka sheegay dabeetana kiiskiisa wixii looga qaban karay iyo talada sharciga ka heli doonaa isla markaana lambarka call centerkaasi hadda markuu dhow yahay dhamaystirmaya waxaan ku baahin doonaa insha Allah goobaha baraha bulshada ka isticmaalo iyo idaacadda raadiyoorkiisa qofka markuu ku yimaado horta waxa ku keentay waa baahi dadkaaga soo aad uga duwan tahay baahida qofku kuugu yimid ee dabtaad ka caawiso ma aad uga faa'iidaysato sirtiisa iyo xogtiisii aad banaanka dhigto waxa jira mabaadi lagu shaqeeyo oo ay kow ka tahay in aan qofka sirtiisa loo ilaaliyo in aan qofka lagu takoorin midabkiisa iyo qabiilkiisa iyo ciduu yahay iyo midna iyo qofka lagu ixtiraamo xaaladiisa waxaan u ilaalinaa kow waxa jira wax la yiraahdo case management process ama qaabka case loo maamulo marka koobaad meel gaar ah lagu wareystaa xogtiisa qofka wareysanaya qof u tababaran mar labaadka form marka la gelinayo kiisasku way kala duwan yihiin kiiska qofka intaan xogtiisa aan aad weydiin oo xogtiisa ku sheegin wuxuu jira form ku saxiixayo oo ogolaansho ku bixinayo in xogtiisa qofkan kula wadaagi karo ilaa uu ogolaansho ku siiyo xogtiisa loo weydiinayso
mar labaadka meel gaara lagu wareystaa wixii laga qoro meel gaara lagu xifdiyaa qofka kiiska haya mooyaane cid kale ma fargeli karto iminka anigu kiiska aan looyar ka ahay inanta kale xafiiska joogta looyaradii ma ogaan karto kiiska inanta kale looyaradii ay hayso anigu ma ogaan karo because waxaa jira kabadhada qoraalkii meel gaar qof kasta abeelayo ku xidho maxaan ku raada xogtiina way kala duwan tahay qofkana waxa muhiim ah oo aan waliba aad uga faa'iideysanaya in xogta la ilaaliyo isla markaana social media imika waxa social media qofsi baa dhacay qof baa iska soo fadhiistay social media waa wax aad iyo aad u ah marka anagu ka Soomaaliland munaasabadahan xogtayadu waa mid ilaashan ma jiro wali 2008 baan shaqo bilownay ilaa maanta xafiiska eegaas 2007 baa la asaasay 2008 oo shaqo galay ilaa iyo maanta qofna soo maray oo xogtiisii iyo recordkiisii uu baxay ma jirto waxa laga rabaa kow in horta uu marka uu qofku imanayo inuu xafiiska yimaado inuu soo hadlo hadii aan xafiiska iman karno qoodsanto kan amba uu la xiriiro cidii kale ee goobaha noo joogta gudiyada hadaanu xataa awoodi karin imka tusaale ahaan daamiyo kale gudiyada ka shaqeeya waa soo naqana wada shaqeeyna hadii aanu anaga halka noo joogin qofna la shaqeeya gudidu soo mari kara qofku marka gudiga soo maray anaga noo yimaado waxa laga rabaa in shuruudihii legal aidka uu buuxiyo ay ka tahay inuu markhaatiyo cadeynaya qofka inaanu awoodi karin inuu maxay ahayday lawyer qabsado marka inta la eego kiiskiisa iyo shuruudaha kiiskani ma noqonaya kiis la gali karo mise ma noqonayo waa kiiska gudihiisa laakiin shuruuda qofka lagu shaqeynaya waa inuu ogolaanshaha bixiyo waa inuu maxay ahayday laba markhaati keeno kadibna dacwadiisa la sargeliyo wallahi marna helida cadaaladda meel weyn bay ka qaataan door muhiim ah ka qaataan doorkii dawladdu ay lahayd bay ka qaataan intaasoo kiis oo maalintii ku soo galaya dawladdu waajib ku hayd inay u qabato lawyer ma hayso dawladdu maxkamadihii waxay u fududeynaysaa in cadaalad la gaaro waayo qofkan waxaad kala shaqeynaysaa sidii uu cadaalad ku heli lahaa qarsooruhu cadaalad ku gaari lahaa cadaymihii oo dhan baad keenaysaa qofku ma fahansana isma difaaci karo maxkamadii ma hor iman karo dadka qaar baa xitaa hadli karin qaar baa cadaymahoodii iyagoo haya aan soo bandhigi karin marka sidii cadaalad lagu gaari lahaa door weyn ka qaataa runtii aad muhiim intaan ogahay anigu ogaalkayga waxaa jira ururka qablaha qareenada Somaliland Law Association waxaa jira ururka regulation soola la yiraahdo waxaa jira xafiiska legal clinic jaamacadda Hargeysa waxaa kaloo jira xafiiska maxaan ku raadayay human rights ka iyagu dadka oromada ah iyo Etoobiyaanka iyo Yamaniyiinta iyo looga doodo marka inta ugu badan Hargeysa ku leeyihiin xafiisyo kala duwan goboladana qaar kood ka shaqeeya xiriir aad iyo aad muhiim ah runtii aad iyo aad waxaan leenahay shirar aan ku wadaagno xog oo aan isku wadaarsano xogta waxaan la wadaagnaa 6 bilood ba hal mar wixii aan qabanay waayo wasaaradda cadaaladda iyada ayaa mandate-keedu yahay in maxay ahayday ay ururada cadaaladda bixiya ay maxay ahayday wadaagaan xogta wada shaqeynaya yeeshaan marka runtii waxaan leenahay xiriir aad iyo aad u wanaagsan si fiican baan wada shaqeynaa waan u gudbinaa xogteeda markii 6 bilood ba hal mar baan u gudbinaa wixii kiisas aan qabanay inta ugu badan kiisaska way noo soo refer gareeyaan oo kiisaska iyagu waxay bixiyaan had iyo jeer maxaa la dhahdaa qareenka dadweynaha difaaca marka qofkaasi qof 10 sano iyo wixii ka sareeya lagu xukumayo ayuu waajibinaya inay qareen u qabtaan laakiin in alla intii ka hooseysay oo dhan ayaan ka daboolnaa marka wada shaqeyn weyn baan naga dhexeeyaa runtii waxa ka mid ah saan ku soo sheegay kiisaska qoyska kiisaska carruurta la soo xirxiro kiisaska kufsiga tacaddi oo dhan kiisaska tacadiyada kala duwan bulshada ku yimaada marka inta ugu badan qoyska ayaan infoofil ku nahay carruurta la soo xirxiraan infoofil ku nahay waxyaabaha aad iyo aad kiisaskooda u badan yihiin soo noqdaan had iyo jeer kiis qoys oo ilmo yar oo maxay laga qaaday hooyadii amba biil kii aabihii bixi waayay oo bilaabiila iyo dhul dama sinno laakiin waanu galnaa inta badan dacwadaha kale waanu galnaa qofka danyartay dhulkiisa lagu haysto waanu caawinaa laakiin inta ugu badan waa kiisaska qoyska kiisaska carruurta kufsiyada maxaan ku raadayay tacadiyada kala duwan dhul kale qofkii aan u aragnay inuu shuruudaha iyaga buuxinayo waanu galnaa wallahi si fiican buu taageeray meel weyn baan u galayaa runtii qofkii aan ogeyn maxaan ku raadayay xogtan waayo telefoonkiisa telesoomtu ka helaya waa lambar uu qaraaci doono sida lambarada kale telesoomee taaba hal taaba laba ilaada marka wuxuu helayaa isagoo gurigiisa jooga intuu dayday lahaa maxaa la ama gudi la xiriir lahaa amba cid kale xiriir lahaa amba cid xog siisa isagoo gurigiisa jooga ayuu xog helayaa isla markaana uu helayaa inuu helo kaalmo sharci oo la talo sharci lagu siiyo gurigiisa oo wixii ka cabanay marka uu wada sax ah u helo
maxkamadda imanaya go'aansan inuu dacwadiisa furtay oo iyo had iyo jeer kiisaska kufsigu way badan yihiin wayna soo maraan laakiin kiisaska kufsiga dawladda ayaa matasha xeer laaliyaha matala xeer laalinta u dooda marka anagu doorkayaga kufsiga marka la taagay waa la talin iyo inaan hadhow toban magdhow sharci u doono qofka magdhowgiisii madaniga ahaa balse kiisaska ugu badan had iyo jeer gallo ee soo mara waa kiisaska qoyska xiriiriyadii aad u weyn bay leeyihiin waana goobta la rabo in ay maxay ahayday ka soo aasaasmaan baa wada shaqayntoodu waayo waa laamihi cadaalad isku yihiin runtii booliska had iyo jeer caqabadaha ka yimaado oo dee taliyihii aad shalay wada xidhiidheen baa berri la bedelaya baarihii aad shalay istaqaaneen baa berri la bedelaya caqabada yar way jiraan laakiin aad iyo aad xiriir aad u weyn baa naga dhexeeya iminka Somaliland Road Association weegii ugu dambeeyay waxaan kulanimo joogtaa la yeelanay muxuu ahaa chananka ciidanka booliska janban dabagale wuxuu nagu xiray laba taliye qaybeed iyo taliyeyaasha saldhigyada daraad baan kulan yeelanay 20kii bisha iyo 19kii bisha labada maalmoodba waxaan aad iyo aad uga wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dadka kaalmada sharciga ururada bixiya iyo booliska aan gaar badan inay jiraan u arkaynay aad bay noo soo dhaweeyeen waana ka xumaadeen yani in caqabadaha jira waxaanay ballan qaadeen in caqabadaha buuxin doonaan wada shaqayn buuxin doonaan kaalmo sharci la siinaya waa qof baahan oo dhiban oo la rabo in la caawiyo marka wax lacag lagama rabo cid lacag ka qaadi mayso lawyer bilaash u doodaya tala sharciyo bilaash u helaya wuxuu baa ku xidhan tahay oo laga rabaa in maxaan ku raadayay qofkaasi la cadeeyo oo uu markhaatiyada jaarkiisa iyo cidii u dhow uu keensado inaan qofkaasi aanu awoodi karin iska bixiyo waayo waba kaalmo sharci leh marka wax lacag lagama rabo kiisaska madaniga inta ugu badan maxkamaduhu waxay cashuur bay ka qaadaan dawladda Somaliland inta ugu badanna cashuur dhaafidu anaga nooguma jirto shaqada waxa nagu jira kaalmada sharciyan adeega siino maxkamadaha laftarkooduna dawladdiiba waajib kaga yeeshay inay cashuur la qaado kiisaska aan aadka u liita waxaan u qornaa codsi cashuurka dhaaf gudoomiyaasha marka ama gudoomiyaha maxkamadda gobolka ha noqdo ama gudoomiyaha maxkamadda degmada inta badanna way naga soo aqbalaan runtii haddii kiisku cashuurtiisu badan tahay qofkana uu aad u dhibaataysan yahay oo la rabo in kiiska la galo saraan kiisaska madaniga ah ee la cashuuray waa kiisaska madaniga ama dhul ha noqdo amba dayn ha noqdo amba wax kale la isku leeyahay markay ugu yartay waxaan dalbanaa cashuur degdeg in maxkamaddu ugu samayso marka kiiskaasi dhamaado cashuurtii dhinacii kale ka soo horjeeday iyo isaga laftarkiisa marka dacwadaasi dhamaataan ku qanacno in marka laga qaado orda kiiska kufsiga aniga doorkayga ma aha inaan xaqiijino waxa doorkooda tahay inay xaqiijiyaan baaraha CID-da iyo xeer laalinta wayaga matala anaga kiis kufsi markuu noo yimaado waxaan ku leenahay waa tala sharci ka sagu marka tala sharci siino waxa kale ku leenahay inaan gudbino goobihii kale sida baaykood saka social uu qofku u baahan yahay haddaanu haysanin hooy oo kale inaanu waabo oo bixiso hooy mudada dacwadu socota aanu gudbino xeer laalinta inaan la xiriirsiino inaan iyaga xeer laalinta u fuudino inta qof maalin soo noqon lahaa anagu isku xil u sameeyno laakiin kiiskani ma kufsi baa mise maaha anagu ma cadeyn karno waxa cadeeyo oo laga rabaa inay cadeeyaan waa laamihii baarista iyo xeer laalinta marka taas aniga doorkayga maaha sharciyan ma matalaya anigu kiiska anigu rabaa inaan cadeeyo kiiska anigu matalay dawladda matalay xeer laaliya waxa isla markaana baaristiisa CID-da anigu waxa laga yaabaa hadii inay ma yar ay jiraan oo ay amba caruur yar oo la soo qabtay oo kufsi lagu eedeeyay markaas kale waan caawinaa oo isaga banda ka u difaacinayo isagna xuquuqda raadina way dadka loogu jira mandate inaan difaacno markaana de waxaan challenge kareynayaan ka hor imanaya kufsigii ma jira iyagu jira oo qofkan cadeeyay ugu fiiradu iga keeno oo waliba caruur yihiin la soo qabtay waan caawinaa laakiin inanta kufsi ku dhacay kiiskeeda ma kufsi baa mise maaha caafimaadkii baa yaala oo la soo mariyo CID-dii baa joogta goobtii tagaysa xeer laalintii baa joogta marka aniga mandate-keyga maaha maya ma baabiino qofku waxa weeye inta uu dacwadda maxkamadda horteeda kaga cadaanayso waa eedaysanaha marka la soo xidho uu caruuriyo waxa jira mar inta kufsi dhaco kii kufsiga geystay baxsado 5 ama 6 idan oo yar la jaara amba la meel amba la garanayo la soo qabto amba sifa gaar ah loo soo qabtay oo alqaali bay ahaayeen iga socday goobtii aan doonay bay ku ayay fadhiyeen oo inama ka raadinay cid kufsiga sameysay wala soo qabtaa wala soo duuba caruurta yar marka la soo duubay la soo xidho
waalidiintood markay noo yimaadaan haddaanu ku qanacno in ay carruurtaasi u baahan yihiin in ay kaalmo sharci helaan waanu caawinaa waxaananu ku caawinaa dee waxaa cidda naga hor imanaysa ma shaqaan jirayna waa dawladdii iyo ciddii dhinaca kale inta u doodaysay xuquuqda intana kuma tumanayno ma diidanin laakiin kan laftirkiisu xaq buu leeyahay uu u baahan yahay in xaqiisa helo ururada aan wada shaqaynta leenahay ee aan u samayno isku gudbino kiisaska waxaa ka mid ah baahikoob waxay bixisaa caafimaad bilaash ah oo waxaa laga qof kufsiga ku dhaco waa goobta keliya ee baaritaankeedu maxkamaddu ku qanacdo ee sharciyan maxay ahayd baari karta kufsiga iyaga waan u gudbinaa marka qofkaasi caafimaad ahaan u baahan yahay waxaa noo yimaado qof kale oo waaba baahikoob soo maray balse aan meel ku noqdo haysa kufsi tusaale ahaan kufsiga faamiliga dhexdiisa ka yimaada ilmo yar baa waalidkiisa kufsanaya inaan buwaarkeed kufsanaya mid bu adeerkeed kufsanaya qofkaasi marka uu doonayo inuu cadaalad helo isla markaana goobtii uu ku noolaa dhibaatadu kaga dhacayso dhibaatadiina ay ku sii socoto wax joogtaa ay tahay si looga baxo waxaanu raadinaa inaan urur waabo oo aan wada shaqayn leenahay oo hooy siiya qofka dhibaataysan muddada dacwadiisa socoto meel uu sii joogo markaanu meel kale oon ku sii hayno weyno inaanu u gudbino bartaa hooy baa lagu siiyaa hooy ammaana oo uu joogo muddada dacwadda u socoto oo lagu ilaaliyo cuntadiisii iyo cabidiisii iyo meeshuu seexanayay marka dacwaddaasi dee u dhammaatana dee ehelkiisa dib baa loogu celiyaa marka ururada wada shaqaynta leenahay bay ka mid tahay waabo baahikoob wasaaradda cadaaladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dhammaantood iyagu way noo soo gudbiyaan kiisaska annaguna waanu gudbinaa EH waxa weeye expanding access to justice ama ballaarinta cadaaladda door aad u muhiim ka qaadan karaan runtii waxaa ka mid ah dooray ka qaadanayaan inay warbixin horta inay ogaal helaan kuwa aan ogeyn waxaa ka mid ah barnaamijkan maanta aynu fadhino waxay marayaan miiriyihii waxaa maalgelisay EH haddaan EH maalgelin lama qabteen miiriya markaa waxa loo marinayaa in dadkii aan ogeyn maxay ahayd inay jiraan ururadaasi isla markaana cadaaladda u baahnaa inay ogaal helaan oo ay la soo xiriiraan waxay bixisay kaalmo sharci inay maxay ahayd inay dadkan maxaa la dhahdaa la shaqeeya looyarada oo maxaa la dhahdaa community based baariga la yidhahdo ama qofka bulshada u jooga inay deegaamo fara badan u samaysay inay goobihii miyiga xataa la isku dayay iminka in la gaadho annaga Soomaaliland umada sishan ahaan waxaa noo qorshaysan ilaa baligubadle salaxley maxaan ku raadayay sala wanaag inta dhan soo in la maro marka door aad iyo aad muhiim ah bay ka qaadanaysaa runtii waana ku mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa idaa kalena inay la mid noqdaan waa maxay fariintaada ugu dambaysa ee aad diraysaado ugu dambayn fariintaan diraya waxa weeye maadaama aanu nahay ururada maxaan ku raadayay kaalmo sharci siiya dadka danyarta ah dadka laga tirada badan yahay iyaga u taagan garab taagan in ay ka faa'iideystaan runtii inay la soo xiriiraan inay yimaadaan lacag ugu qori mayso haddaanad kiiskaaga xataa cabsi kugu jirto oo baqanayso oo tacaddi ku haysto waa lagu garab istaagaya dalkaaga baad joogtaa calankaaga baad joogtaa lawyer bilaashaad helaysaa tabac sharciyo bilaashaad helaysaa in lagu ilaaliyaad helaysaa kufsiyada la qarinayo guryaha hoostooda lagu haysta inta guryaha hablaha lagu kufsada lagu dhex qarsanayo in laga daayo waxa weeye maalin maanta hayn baa la iska xisaabin qof waliba waa mas-uuliyad kastana ilaahay baa mas-uulkiisa weydiin doona maalinta qiyaame marka waxaa muhiim ah qofku inuu ku baraarugsanaado in dalkiisa joogo dalkiisiina dad u shaqaynaya jiraan annaga dadkaygu furayay diyaar baanu nahay markasta waxaan idin soo dhawaada xafiisyadeeda kaalaya na soo booqda bal xog hela marka aad iyo aad waxaan leeyahay dee laga faa'iidaysto waad mahadsantihiin daawadayaal intaas waxaan ku soo afmeeraynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ee aynu kaga hadlaynay marino helidda cadaaladda taasi oo ay fulinaysay hay-adda aadam academy isla markaasina ay ka caawinayeen EH iyo wasaaradda cadaaladda Soomaaliland anigoo Luqmaan Maxamed Faarax iyo Faad Axmed Kaariye oo duubidda isku dubiridda iyo hagaajinta bay noo joogay waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh